محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا محمد محمد يا رسول الله anigu waa sida aad u sheegtay dagaalka waan ku jiray si kastaba aan ku imi haddana waxaan ahay oday maxbuus oo lahayo wax dhib oo aan hadda tirsanayo soo faarna ma jirto markii ciidamadu ku soo qabtay wax dhib iyo gardaamaha lagu geystay mad garanaysaa may wax dhib oo cid ii geysatay niman dhalinyaro ay qabteen nimanka dhalinyarada ay qabteena runtii de garaafana iguma taalo si fiican bay la dhaqmeen maanta waa maalin farxad weyn waxaa weeye waxaan inta u halgamanay duurka ugu jirnay u dagaalamanay maanta waad aragtaan dhulkii gurigii gobolka waa qabanay annagaa shirkan jaraa'idaan haynaa waxaan ku haynaa taliskii gooja cadde ee ciidanka qaranka waa nabadgelyo waa nabad qabnaa ciidamada huwantu shalay oo kowdii bisha ahayd waxay ku soo qaadeen weerar fadhiisimada ciidamada iyo wadadii dhexe ay taakulayntu ciidanka u maraysay tallaabo adag baa laga qaaday tallaabo adag ayaa laga qaaday ciidanka qarankuna heegan waxay u yihiin inay difaacaan karaamadooda iyo sharafkooda iyo jamhuuriyadda jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland barakaatu halka waxa ka salaamaya dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland maanta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuu guuleystay wuu joogaa maxaabiis fara badan buu qabtay baabuur buu qabtay in baabuurna way gubeen ciidanka qaranka waxaad ka barateen inaysan maxaabiista dhibaateyn aysan waxyaabo u geysan oo aysan dhibaateyn waxba yeelin ninkan imika wuxuu ka mid ahaa maxaabiistii ugu dambeysay ee hadda la qabtay hadda waqti xaadirkan oo ah 3 galabnimo magaca ani magacay Ali Maxamed Xasan Xoole hagee ka timi cod kor hagee ka timi bari gobolkee gobolka bari Ardho gobolka bari baa ka timi maanta ka waran suu dagaalku ahaa sidii ku ahaa ka war bixin karo dagaal lagu qabtay adoo lagu weynaya lagu qabtaa qoladaas جرتين باتا فضلا نوصار سبسكرايب على خير قصي وحدك دقات خفر حدير عليها قصي وقصي بير حق صورتي في واحد قاع صني انا الله يرتي سبسكرايب الى ضعف سيدا halka ku aragto ciidamada Soomaaliland oo kala daaday ciidamadii masheerteen iyo ciidamadii Puntland Soomaaliland oo ka gaadhay taariikhdii abid dagaalada iyo shaqaqooyinka ka dhacay laascaanood soo qabqabatay maxaabiisaha faraha badan ee halka ku arkayso ciidamada BSF ee Mareykanku tababaray iyo ciidamada huwanta ah oo waxa weeye afka ciidda loo galiyay shalay hore ku dhaco ku daraqdo dhiigaagu ugu dul maanta waxaan ku hayaa warar la yaab leh anigu cidna uma hiirinayo balse waan ka xumay horta dagaalada ka socda laascaano ee dadka walaalaha ah ay ku dhimanaya dad baa ku faraxsan oo waxa weeye reer hebel baan huwanu hiirinaya anigu reer hebel ah ayaan haddana reer hebel waxa weeye dulmiga ka qabanaya reer hebel aan ahaado ama reer hebel aan ahaade waxa cadeen aan ku haya maanta halkan baan ku gula wadaagay ciidamada Soomaaliland shalay waxay qaadeen dagaal qaarna khoor ah mid qaraar ayuu ahaa waxa ku dhaawacmay dad 300 oo qof ku dhow tirada dhimashada 150 meelahaas maraysa waxa la helay muuqaalo la yaab leh oo argagax leh oo lagu baahiyay baraha bulshada rag la dhaawac tirayo oo qaarkood ay ku farxeen dadka qaarna ay kaga falceliyeen arrimo naxdin leh oo Soomaaliland sababta maxaabiista haysa maxaa loo laayay maxaabiista ay qabatay waxa weeye nimanka dhulbahanta maxaabiista qabteen waar dhulbahantoo maanta ee baa ku daba taala waxa weeyaan maxaabiis baad ku dhaawac tirtay maxaabiista ciidamada Soomaaliland qabtaan ee waxa weeye garcadde xildhibaanadu ay ka mid yihiin ciidamada BSF ay ka mid yihiin in la qalqalo miyeedan ka baqayn war heerkan waxa weeye ummadda Soomaaliyeed may oqoon horta marun baynu ka hadalnaa misabe maanta inagu cidna dulmiyo mayno balse run baynu soo bandhigayna nimankaasi waxay leeyihiin dhulbahanta dagaalku markuu dhacayay nimankan eryaneynay ee habada ku dhacday ayaa waxa weeye sidaas aanu leeyahay balse raga ku dhaawac tirnay ma yahayn balse waynaga aragna iyadoo ay ragu leeyihiin
ونول يهو دقدقاق ياهي حبات كلا خو قبو oo midaanay Soomaaliland hayn maxaabiis 60 ama 80 kor u dhaafaya oo laga soo qabqabtay deegaanada Laascaano maxaabiista shalay 35 kor u dhaafaysa ee qaarkood dhakhtarada Burco lagu dabiibaya iyo oo midaanay ka baqay nimanka dhulbahantay iyo xulufada ay wataan in waxa weeyaan maanta ay heer noqonayso maxaabiista marka la kala qabsado in bartooda lagu baqtiyo oo aan nolol lagaga dhaqaaqin xildhibaanka Puntland ka soo sheeda ee la hayo ayaa saameyn weyn ku yeeshay baraha bulshada oo laga baqayaa in waxyeelo soo gaadho ninka la dilay shalay ee lagu dhaawac tiraya nin habash ilaha buu ahaa nin dhulbahanta ah ayaa sidaa u qaray guusha ay soo gaadheen ciidamada Soomaaliland shalay hore waxay ka dhigan tahay mid ay dadka reer Soomaaliland ugu dabaaldegeen baraha bulshada waadaga arkay maanta colaad ayaa bilaabantay maaha ka hadal iyo hebel baa sida noqday waa colaad dhaba balse war baan ku hayaa degdeg oo hadda soo dhacay ciidamada Soomaaliland koofiyad casta oo gaaraya 12,000 oo hubkooda iyo saanadahooda kala duwan wata ayaan ku xaqiijinaya inay ku sugan yihiin goosh cad waxa ay rabaan inay dhowrka maalmood ee soo socda tallaabo ka dhana qaadaan oo ay la wareegaan marka ugu horeysa Laascaano gebigeedaba ay ka dhigaan goosh cadihii laba iga qormirka waxa dhacay wixii dhacay waxa soo socday ba ka daran maanta waxa u yaala masheerteen iyo dhulbahanta iyo harti oo dhan oo isbiirsaday ma ku filan yahay hubka ay haystaan harti iyo dhulbahanta nimanka waxa weeyaan xulufada isu soo urursaday kuma filla hubka ay haystaan hubka kaliya goosh cadaya loo kaliya ayaa waxa weeye haddii sanad ay ku wadaan aanay ka goyoon karin haddaba nidbaa meesha taala nimanka dhulbahanta nabad bay haysteen nabadda ay haysteenna waxa weeyaan iyagu waxay diideen dulmi lagula kacay oo dadkoodii lagu laayay Laascaano 2 sano gudaheedu kaliya ayaa 380 qof qoorta loogu dheereeyay oo waxa weeye qaarkood ay cuqaar ahaayeen qaarkood ay xildhibaan ahaayeen qaarkood ay lamaanayaal ahaayeen qaarkood ay arday ahaayeen qaarkood ay wareeyayaal ahaayeen waa run xaqiiqo dhabataas dhulbahanta dulmi ayuu rabay inuu soo qaado balse dhiiqu lugaha la sii galay Soomaaliland waxay ballan qaaday deegaanada ka maqan sida Baran Laascaano Buuhoodle Werwid waxa weeyaan Boocame inay gacanta ku soo dhigto bisha gudaheeda ay ku shirno mid kalena aan ka dabageeyo dhacdooyinkii dadka wuxuu iska garanayna waxyaabihii arrimihii soobo oo kale wixii dhacay waxay dhaceen waqti Ramadaan ah sidii waxa weeye dagaalkan u dhacay Muqdisho waxba kama dhicin bal halkaa maxaad ka dareentay halkaa waxba ku jira balse way soo baxaya mar kale farqayn doona taana haddaba maanta waxa la yiri dhulbahante waxa weeyaan maanta wuxuu leeyahay meela ka baxo ayaan la ahay waa la soo galay dadkaydii baa la laayay ma sharayo kaliya dadka la dilay waxa weeye dad aan halkan tiroodooda lagu soo bandhigi karin gawaadhida ay soo qabsadeen ciidamada Soomaaliland ee ciidamada BSF raayeen gaariga baraadada uu ku jiro waxa iska leh niman warsan galina oo reer garoobe ah intuu soo itaabsi waxa la xiray muuqaalo la yaab leh oo been abuura oo la leeyahay waxa weeye ninkaas lagu dhaawac tirayo waxa uu ahaa nin aan eryanayna balse ninka muuqaalka khadubaya waxa kale waar ninkani waxa weeyaan waa dhaawac xabad naga aamusi anaga hooyada waxa sida ku sameeyay maanta colaad baa oogan sidee baa lagu damin karaa waxa lagu damin karaa waa sida ay Soomaaliland rabto oo ah inay tallaabo ciidamada koofiyada cas ay wadaan iyo qorshayaasha ay wadaan ay qaadaan waliba aan ka dabageeya saraakiil baa jirta Soomaaliland laga dhaawacay adoo ba aqraad leedahay carar maxaa dhaama ilaahu kala qaboosh colaadda dadka Soomaaliyeed halkaa ku maranaya ee ku dhibaataysan waxaan ku soo gudbin doonaa warar dhaba anigoo aan midna siinay dhinac waxaan ahay wariye sax oo xaqa baadilka soo kala saara waxaan halkan ku wadaagi doonaa muuqaalo haddaad rumaysato iyo haddaad rumaysanayba ay dhab yihiin balse mid baan kuu sheegaya anigu cidna
taageeri maayo balse waxaan soo gudbin doonaa wax kasta siday u dhaceen waxaan ku leeyahay ka mid ahow xaqsoortii